gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle Cusmaan Barre Maxamed ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa magaalada Jowhar ayaa sheegay inay dhamaatay waqtigii baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle iyo kan guud ahaan xukuumadda Hirshabelle. sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle Cusmaan Barre Maxamed ayaa wuxuu baaq u diray guddiga farsamada ee soo xilista baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabelle. shirkeena jaraa'id dhowr qodob oo aan rabaa inaan uga hadlo. qodob koobaad waxaan rabaa marka ugu horeyso warbixin guud oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka dowlad goboleedka Hirshabelle. dowlad goboleedka Hirshabelle waxaa la aasaasay 2016 bishii tobnaad Oktoobar hadda aan ku jirna. waxaa u dhamaaday 9 Oktoobar 4 sano ayaa u buuxsantay. dastuurka dowlad goboleedka Hirshabelle wuxuu qorayaa mandate-ka hay'adaha dastuuriga ee sharci dejinta iyo fulintaba inuu 4 sano yahay. dastuurka dowlad goboleedka Hirshabelle kuma qorra waqti kororsi iyo in baarlamaankaas waqtigaas jooga loogu daro intaba kuma qorno. 4 sano markay dhamaataba in doorasho la qabto oo yani la cusboonaysiiyo ayuu qorayaa. marka waxaan rabaa dowlad goboleedka Hirshabelle waqtigeeda wuu dhamaaday. doorasho ayay gelaysaa sida dastuurka uu qabane maalin in lagu daro dastuurka ma qabo. annagana saas ayaan raacsanahay in aan maalin lagu darin. doorashadan waxay ku dhacaysaa waqtigeedii loogu talagalay ay ku dhacaysaa. bishii September waxaa la magacaabay guddigii farsamada ee xulitaanka baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle. runtii guddigaas waxaa lagu magacaabay si dastuuri ah oo dastuurka dowlad goboleedka Hirshabelle uu qabo. waxaan leeyahay marka guddigaasi waa guddi dastuuri ah, waa guddi shaqadii loogu talagalay inay qabtaan runtii loo igmaday. waxaan leeyahay shaqadeena qabsada. guddi haddii dastuur lagu magacaabo waxaa lagu bedeli karaa dastuur. marka waxaan leeyahay waqtigii Hirshabelle waa dhamaaday. shaqada aad wadiin oo ladin igmaday si hufan oo dastuuri ah u qabta. guddigaas shaqadiisana waxay tahay oo 3 qodob ayaa ugu weyn. marka koowaad odayaashii dhaqanka inay soo xareeyaan oo muxuu ahay keenaan oo ay dejiyaan oo qabanqaabadoodii iyo dib u dejintoodii iyo odayaashaas khidmayntooda inay ka shaqeeyaan. qabashada liisaska iyo hubinta xildhibaanada la soo gudbiyay iyo foomka buuxintoodii. qodobka saddexaad oo ah inay qabanqaabiyaan dhaarta xildhibaanada iyo muxuu ahay xafladaasi si xildhibaanada loo dhaariyo qofka ugu daaweyn ay gudoomiye ugu doortaan markaas. intaas ayaa shaqada ay muxuu ahay muhiimsan tahay. runtii guddigaas jadwalkii ay dejiyeen ee doorashooyinka lagu qabanayna waxaan leeyahay waa sidiisi. cid kasta oo muxuu ahay danaynaysa dowlad goboleedka Hirshabelle cusub waxaan leeyahay magaalada Jowhar guddiga shaqadiisa ayuu wadaa inay timaadin ayaan adinku baaqayaa ama adinku talinayaa. sidoo kale waxaan leeyahay odayaasha dhaqanka ee saxiixiyaasha ah ee soo dhisay dowlad goboleedka Hirshabelle waxaan ka codsanayaa anoo ku hadlaaya afka muxuu ahay baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle inay yimaadaan muxuu ahay Hirshabelle si ay u dhisaan maxay ahaydii xubnaha ay soo xulaan muxuu ahay golaha shacabka. waayo sida uu qabo muxuu ahay dastuurka dowlad goboleedka Hirshabelle waxaa soo xulay xubnihii hore doorasho kuma imaanin beelaha ayaa soo xulay waxaana soo gudbiyay odayaasha dhaqanka. marka odayaasha waxaan leeyahay waqtiga waa dhamaaday. qodobo dastuuri ayaa jiro oo adin khuseeya inaad xildhibaanada soo gudbisaan. marka waxaan leeyahay inaad u dhagan ugulataan baaqi guddiga oo aad timaadaan ayaan adinka codsanaya. odayaasha inay tihiin. Yusuf Maxamed Ahmed, Bulsho TV, Jowhar.